isimadan ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta gelinka soo dhaweeyay duleedka bariga ee magaalada Laascnood waxaana ka hortagay wafdi Warka iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaalay weeliyaan gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Laascnood iyo saraakiisha ciidamada ammaanka soo dhaweyn dabadeed waxa wafdidan la soo galbiyay gudaha magaalada Laascnood waxa uu garaad jaamac garaad Ismaaciil ku qaabilay qasriga uu ka degan yahay magaalada Laascnood wafdidan ayaa muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaanka xoor ay ka socotay shir lagu heshiisiinay beelo wada deegaanada Qorle iyo Magacle waxaana wafdidan madax dhaqameedka ay ka koobnaayeen garaado suldaano iyo ugaasiyo horkacayo garaad kulmiye garaad dool garaad wiilwaal ugu horreynna waxa soo dhaweyntaasi ka hadlay maayirka degmada Laascnood iyo gudoomiyaha gobolka Sool waxayna sheegeen in ay ku soo dhaweynayeen ismada magaalada Laascnood halkan maanta waxaan ku soo dhaweynay wafdi ballaaran oo ka timi ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo salaadiina aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa nabadgelyada ballaaran ay ku soo gurmadeen ay ku heshiiyeen beelihii walaalaha ahaa ee dirirta ku dhaxmartay soonka qorilay gurmadkaasoo mid islaamnimo ah iyo mid tuliimo ah aanu aad iyo aad uga mahad celinayno garaadada inooga yimi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminayo garaad kulmiye garaadka garaad jaamac garaad Ismaaciil taliya qaybta gudoomiyaha degmada taliyaasha ciidanka inta farxad weyn waxa noo ah inay noo yimaadeen odayaashayadii oo abayaashaya ah oo nooga yimi dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya idinku soo dhaweyno Laascnood idinku soo dhaweyno guriga garaadka idinku soo dhaweyno xaruntii gobolka Sool ee Laascnood geestiisa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaalay iyo cuqaal caanka gobolka Sool uu kamid yahay Caaqil Axmed Cabdi Gaas Axmed Holof ayaa sheegay inay ku soo dhaweynayaan isimadan ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Laascnood waxa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya abka shacabka ee gobolka Sool magaalada Laascnood wafdi ballaaran oo ka yimi ismaamulka Soomaalida Itoobiya way hogaaminayaan salaadiintii oo ugu horeeya garaad kulmiye salaadiintaas oo ah 12 isim sidaad ogtihiin ba halkan waxa ku soo dhaweeyay maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka maayirka magaalada saraakiisha ciidamada iyo dhammaan shacabweynaha magaalada Laascnood oo dhan waxaanu maanta waxaanu idin leenahay mahad ilaahbaa leh kulanka maanta aad noogu timaadeen waa idinka mahad celinaynaa waxaanu idinku daraynaa maanta waa barasho wanaagsan baa u leenahay garaad kulmiye garaad dool garaad wiilwaal oo hogaaminayay wafdidan isimada ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta lagu soo weeyay magaalada Laascnood aad baan u faraxsanahay aad baan u soo dhownahay waxaan nimid magaaladayadii waxaan u nimid dadkayagii martimanihin soo dhaweyntaad noo sameeyseena ilaahay jazaa'iga xasanaadka miisaanka ilaahay aakhiro ay idinku daro xaqiiqo weeye dhulkayagii iyo dadkayagii baan u nimid walaalahayaan u nimid martimanihin magaaladayadii weeye soo dhaweynta badan nin magaaladiisii yimid baan nahay soo dhaweynta badan ma mudnin marka waa mahadsantihiin dadkan degan Somaliland iyo dowlad deegaaneedka dadka degan waa dad walaalaa waa dad darisa waxaan ka nimidnay magaalada Jigjiga iyo Laascnood waa dad walaalaa wada jooga waan faraxsanahay sida quruxda badan ee qaayaha leh noo soo dhawaayay tolnimada leh waan ka mahad celinaynaa saana loogu kala harin maamul ciidan iyo cuqaalba waa taariikhi weeye waad ku mahadsantihiin walaalaha tihiin dhaweynta lagu soo weeyay magaalada Laascnood ma aha markii ugu horeysay oo wafdiisima oo ka socdo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo Axmed Jaamac telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Laascnood